بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقرد الشنطة الصومالي عليكم السلام والآل هذه أدبان دين سلام يا وحنا دلائي رمضان كريم رمضان مبارك والآل ميلاد جوكتان با عدي أولي أفورين عدي السحور التهاي عدي أفورتي وحنا دلائي هاي سورد وهذا رمضان كريم بان دلائي هاي وشنن أوغو وحوي وبرنامج كيف فاقدات قدادوين تعاوى يا عالمك barnaamijyada iyo qodobada aynu kaga hadlayno waxa kamid ah please share gareeya videoga caawa barnaamijku waa barnaamij xasaasi ah isbarbardhiga magaalada Muqdisho iyo Kismaayo xarmaajo Allahumma salli ala Muhammad Bob Faras taba casar oo bariyaan hadalkiisii batay beelaha hawiye odayaashii ugu dhaqanka odayaashii ugu tunka weynaa oo 24 saacadood gudahood ku amray in dadka ajnabigii macaafaqashtu kaga baxdo magaalada Muqdisho nimankii way soo qaateen magaalada Muqdisho tahriibka maxaa u sababa yaa qalad kale ma qofka tahriibaya mise dad kale qodobada iyo qodobo kale ayaynu caawa ka doodi doonaa fiidooga sheergareeyo wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan walaalidiin salaamayaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya meel ay joogtaba soo dhawaada walaalayaal si toos ah ayaanu gudagalaynaa barnaamijka si toos ah qodobada sidaan horeba u sheegay si toos ah ayaynu gudagalaynaa barnaamijka sheergareeya qofka arkaba si sheergareeya Ramadan Kariim baan idin leeyahay wax xaqiiqa ayaanu ka hadalnaa walaalayaal wax xaqiiqa ayaanu ka hadalnaa qodobada waynu kala qaadaynaa waxaynu kala qaadaynaa hal qodobka koobaad baan toos u gudagalayaa qodobka koobaad ninkii xarmaajo magaalada Kismaayo tagay magaalada Kismaayo sidee looga soo dhaweeyay dadkii mashabag buu ku ooday sidii Muqdisho maxaa different u dhaxeeya Muqdisho iyo Kismaayo magaalada Kismaayo miyaanay Soomaaliya kamid ahayn farmaajo ma dalka loo tagay tusaalaan idin siinayaa Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaye markuu gobolka Burca tagayo ma roog casbaa loo dhigaa ma ciidan baa salaama taasi waxay ku tusaysaa magaalada Kismaayo amba Jubbaland inaanay Soomaaliya kamid ahayn talabaad sawirka labaad ee ku muuqanayana waxa weeye xarmaajo shacabkii magaalada Kismaayo shaax buu la cabay wuu dhex socday kamuu cabsanayn salaadihii buu la tukaday halka magaalada Muqdisho shacabkii magaalada Muqdisho masaakiinta ahana sidii digaaga iyo ayda uu shabag ku ooday waa kaafiye kala dheeri runtii haddaba barnaamijka intaana si toos ah u gudagelin waxaan idin tusayaa walaalayaal barnaamij yar oo kooban oo lagu qiimeynayo xarmaajo beentiisii iyo ballanqaadyadiisii beenta ahaa ila daawada fiidooga sheergareeya walaalayaal boqolkii maalmood ee ugu horeysay ee uu talada dalka hayay madaxweyne Farmaajo waxa uu galay 10 safar waxa uu booqday 9 dal waxa uu dalka dibadiisa uga maqnaa 26 maalmood taas oo celcelis ahaan ka badan madaxweynayaashii ka horeeyay dhanka amniga waxa dhacay 30 qorax oo ay ku dhimatay 415 qof oo uu ka mid yahay wasiir xukuumadda Soomaaliya ka tirsan tiradaas ayaa sidoo kale celcelis ahaan ka badan tirada qaraxyada iyo dhimashada rayidka taliskii ka horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sameeyay ballanqaadyo fara badan maalmihii ugu dambeeyay ololihii doorashadiisa isagoo oo sheegay in wax badan ka bedeli doono habdhaqanka siyaasadeed ee dalka ay hore u soo maamuli jireen madaxweynayaashii isagoo ugu horeeyay hoggaanka dalka ballanqaadyadaasi waxa ugu muhiimsanaa kuwa la xiriira safarada madaxda iyo kuwa amniga la xiriira waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha ballankaasi waa buray wuxuuna raacay dabayshii ololaha doorashada mid ka mid ah ballanqaadyadaasi waxa uu ahaa in socdaalka dibadda uu u deyn doono wasiirka arrimaha dibadda maadaama uu yahay mas'uul u xil saaran xiriirka caalamka
laakiin madaxweyne farmaajo ma dhaqan gelin ballanqaadkaas isaga oo boqolkii maalmood ee ugu horeysay tan iyo bishii Febraayo 8 uu socdaal aan kala go' lahayn ku aaday 9 dal sidoo kale tirada maalmihii uu dalka uu ka maqnaa ayaa gaaray 26 maalmood haddaba dhalankii madaxweyne farmaajo waxa uu jabiyay boqolkii maalmood ee ugu horeysay waqtigiisa madaxweynenimada iyadoo ay sidoo kale safaradiisu saameyn xoogan ku yeesheen howlihii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dhinaca kale muddadaas boqolka maalmood gudahood booqasho ku yimid dalka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres xogayaha arrimaha dibadda ee UK Boris Johnson gudoomiyaha cusub ee midowga Afrika Moussa Faki iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Afrika Ahmed boqolkaas maalmood gudaheed waxa uu madaxweyne farmaajo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay dhowr safiir oo kala ah safiirka cusub ee Ingiriiska David William Consor safiirka cusub ee Shiinaha u fadhin doona Soomaaliya Xin Jin iyo safiirka cusub ee Ethiopia Jamaluddin Mustafa Umar inkastoo uu wasiirka arrimaha dibadda Yusuf Garaad Umar sheegay in safaradaas aysan dawladda wax qarash ah uga bixin haddana goobjoog waxay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in marka laga reebo labada safar ee Sacuudiga iyo Imaaraadka qarash aad u badan ay dawladda Soomaaliya ku bixisay safarada madaxweyne farmaajo tusaale ahaan shirka London waxaa Soomaaliya uga qayb galay ilaa 35 qof dawladda Britain waxay nooliga safarka bixisay 10 qof inta kalena dawladda Soomaaliya ayaa bixisay qarashkaasna wuxuu ka badan yahay $150,000 sidoo kale safarada Kenya Ethiopia Turkiga Jordan Djibouti iyo Qatar waxa ku baxay qarash celaalis ahaan gaaraya $50,000 midkiiba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shacabka u sheegay markii uu murashaxa madaxweyne ahaa in loo baahan yahay isbedel dhab ah isaga oo mar walba xoog saaraya guud ahaan arinta amniga dalka gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo dibadda loo diro dawladahaasi lacagta ku bixiya in nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate garayno waxyaabaha ay qarxiyeen haddii hoteello haddii guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas'uul ah annaga ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinto ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahdaa dhaqaalihii ay waalidku ka heli jireen haddaba boqolka maalmood ee ugu horeysay ee uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa dhacday dhacdooyin murugo leh sida qaraxyo dilal toos ah iyo dagaal beeleedyo isla boqolkaas maalmood gudahood mudane farmaajo waxa uu isbedel ku sameeyay hay'adaha amniga isaga oo maalin qura shaqada ka eriyay dhammaan afartii taliye ee ciidamada amniga ugu sarreysay isla markaana magacaabay kuwa kale dhaqankaas oo ay dad badan ku dhaliileen waxa inta dheera howlgallo la sameeyay qaraxyo la fashiliyay iyo 3 heshiis amni oo la galay sida heshiiska madasha heshiiskii amniga ee London iyo soo jeedinta qorshaha howleedka ee lagu xasilinayo magaalada Muqdisho muddada boqolkii maalmood ee la soo dhaafay waxa dadka Soomaaliyeed soo gaaray khasaare naf iyo maal leh dadka la dilay waxa ku jiray qaar toos loo toogtay qaraxyo dagaal beeleed duqeyn iyo qaabab kale sida aan horay u sheegnay boqolkii maalmood ee madaxweyne farmaajo ugu horeysay waxa Soomaaliya lagu dilay 45 qof halka dhaawac uu soo gaaray 239 qof madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sameeyay dadaalo xagga ammaanka ah sida isbedel lagu sameeyay hoggaanka laamaha amniga iyagoo sameeyay isku day hub aruurin iyo fashilin qaraxyo ah waxa intaasi dheeraa in uu madaxweyne farmaajo ka qayb galay kulankii heshiiska amniga ee madasha dawlad goboleedyada dalka ee ka dhacay Muqdisho okay waa boqolkii cisho si fiican baad u daawateen haddaba waxaan isbarbar dhigayaa magaalada Kismaayo oo uu tagay si qabiilnimo ah ayaa loogu soo dhaweeyay ninkii cagdheer Axmed Madoobe waxa uu dhigay roog cas shacabkii magaalada Kismaayona way dhex socdeen shabag laguma xidhin waxay u muuqatay inuu dal kale oo aan Soomaaliya ka mid ahayn tagay waa anshax xumo iyo dhaqan xumo gobol Soomaaliya ka mid ah in sida madaxweynihii sheeganayay inuu xukumo loogu soo dhaweeyo oo ciidan ay salaan siiyaan taasi waxay ku tusaysaa in aanu maamulin xarmaajo oo ka madax banaantay magaalada Jubbaland Kismaayo
haddaba waxaan isbarbar dhigi doonaa sida loogu soo dhoweeyey iyo magaalada muqdisho dadku uu shabaga ku ururiyey iyagana in yar ila yara daawada walaalaya علي ما شاء الله صار يقدم waayahay waa magaalada Kismaayo malaha Kiiniyu tago lagu soo dhaweeyay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanye haddii uu gabilay tagayo maroog casbaa loo dhigaa oo waxa lagu soo dhaweeyaa ciidan iyo qaale arag taasi waxay ku tusaysaa maamul xumada iyo nidaam darrada ka jirta meesha in nin waliba gobolkiisii uu dawlad ka dhigtay haddaba waxaan idin tusayaa ninkii Xaarmaajo oo magaalada Kismaayo kula shaaxaynaya dadkii oo kula cabaya mataqaana shaax halka magaalada Muqdishona uu shaba ku soo ururiyay walaalaya waa ka uu ku dhex jira waa magaalada bartankeedii buu marayaa magaalada bartankeedii ayuu marayaa ila daawada sida magaalada bartankeeda loogu soo dhaweeyay waa shacabkii weeyay magaalada Kismaayo shabag laguma xarayn Farmaajo uu salaamaya uu dhex socdaa haddaba waxaan idin tusayaa walaalayaal waxaan idin tusayaa shacabkii magaalada Muqdisho oo shabag lagu soo ooday iyagana ila daawada sidoo bahdilay ma digaag baa ma ayba ma waraabayaal baa sidee bay u dhacday okay waad aragteen inuu shacabkii Muqdishona dadkii masaakiinta barakacayaasha ana shabag uu ku xidhay oo uu shabaga ka salaamayo magaalada Kismaayona uu shaaxa la cabayay uu dhex socday haddaba waa maxay differenka u dhaxeeya shacabka Muqdisho ee soo doortay Farmaajo iyo shacabka Kismaayo ku nool waa maxay differenka u dhaxeeya maxayse ku kala duwan yihiin sidee baa shacabka magaalada Muqdishona shabag loogu xidhay sidii ayda iyo xayawaanka iyo digaaga magaalada Kismaayona habeenkii saqdii dhexe u dhex socday ee uu shaaxa ula cabayay differenka u dhaxeeya maxay yihiin ana idin sheegaya magaalada Kismaayo nin daarooda xukumo oo ogaadeena magaalada Muqdishona dadka dega beelaha wiye u badan yihiin marka dadka uu bahdilayaa wuxuu ka dhigayaa dad liita oo aan wax jira ahayn dadkana wuxuu ka dhigayaa dad qiimo leh dadka Kismaayo uu isku aaminayaa oo nin daarooda kama shakiyayo dadka magaalada Muqdishona naftiisa kuma aaminayo oo uu ka baqayaa oo iskuma kalsoona
marka arrintaasi sidaasay u kala duwan tahay haddaba magaalada Kismaayo ayaynu galaynaa walaalayaal magaalada Kismaayo ayaynu galaynaa magaalada Kismaayo waxa xukuma nin Axmed Madoobe la yiraahdo ogaadeena abiye siru malaha Toobiyaan baa keensaday magaalada Kismaayo waa magaalada la rabo in la raaciyo dalka Itoobiya wakiilka shanaad in lagu daraa la rabaa magaalada Kismaayo waana magaalada ay rabto dalka Itoobiya inay bad ka samaysato oo ay la wareegto dhulka Soomaalida kala wareegto badda magaalada Kismaayo waxa maalgeliya ninka Axmed Madoobe la yiraahdo Itoobiya iyo Kenya waxa maalgeliya dawladaha reer galbeedka waxay u maalgeliyaan wax kala maaha waxa ay rabaan inay Itoobiya ku daraan magaalada Kismaayo iyo gobolada Jubbooyinka oo badaha iyo wabiyada Itoobiya ay la wareegto waxaan ku sheegayaa walaalayaal Axmed Madoobe abiye isrumala meesha ciidanka Itoobiya uu ku qabsaday Kenya maalgelisa waxa daga qabiilo badan baa daga gaal jecel baa degta waxa daga raxaweyn baa daga dir baa daga jareer weyna daga digri iyo milifla daga iyagu abiye isrumalaha meesha waxay ka dhigeen carro daarood bay ka dhigeen carro ogaadeen bay ka dhigeen awoodii Itoobiya ayay ku qabsadeen waana meesha ay rabto magaalada Jubbaland in lagu daro dalka Itoobiyana waxay rabtaa inay la wareegto magaalada Kismaayo waana meesha ciidankeedu uu joogo taana waan idin sheegayaa walaalayaal waa xaqiiq waa dhab Soomaaliya kamid maaha Soomaaliya waxaan ku yiri afka iyo calanka bay ku wadwataanay ku shaqaysanayaan siyaasad guuna bay wadaan walaalayaal runtaan idin sheegayaa meeshan lama doonayo dawlad Soomaaliyeed in laga dhiso koonfurta Soomaaliya nimankan daarood way xildheeri haddaba isla goobta waxa iskugu yimid Morgan oo aad taqaaniin dhagarta iyo xasuuq ummadda Soomaaliyeed u geystay oo dambiile ah oo mujrima oo gaala oo yuhuuda oo jaahila oo cawaana ayaa magaalada Kismaayo joogay waxa kaloo imid aadan barre ducaale miyaa taqaanaan maxaa keenay Kismaayo aadan barre ducaale waxa weeye waa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya Gaarisa laga doortaa waa nin ogaadeena maxaa keenay aadan barre ducaale how can impossible ma Soomaaliyu ayuu ka shaqeeyaa ma Soomaaliyu xil saaran daaroodnimu ugu yimid shirka meesha ka dhacayna shir daarood uu ahaa beelaha kale waa loo diiday waxa meesha ku haya ninka gudoomiye ku-xigeenka maxaan ku dhaayay aadan barre ducaale oo Kenya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya iyo Itoobiya Cabdi Ileeye iyo Axmed Madoobe si toos ah wada shaqeeyaan hadday ciidan tahay hadday hub tahay hadday dhaqaale tahay waa la soo hubeeyaa waxana la rabaa magaalada Jubbaland gobolka Jubbaland maamul goboleedka in lagu daro Itoobiya arrintaasi waa arrin xaqiiqa shirka meesha ka dhacay ay ka soo qayb galeen Morgan lagu soo casuumay barre aadan barre ducaale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka lagu soo casuumay walaalayaal waa loo diiday beelaha Kismaayo dagaa inay ka soo qayb galaan arrin sir ay ahayd haddaba waxaan idin sheegayaa maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Jubbaland way caddahay Itoobiya laga maamulaa Itoobiya dhaqaale siisa Itoobiya soo hubaysa ciidamada meesha joogay magaalada Kismaayona ma ahayn ciidamo Soomaaliyeed qabaa'ilada kale kuma jireen gaal jecel kuma jirto sheekhaal kuma jirto digri iyo milifla kuma jiro maxaa ku dhaayay raxaweyn kuma jirto jareer weyne dir kuma jirto waa ogaadeen waa mareexaan waa majeerteen way suruursadeen daarood cid taraxdaa ma jirto walaalayaal waxa lagu soo dhisay kilka shanaad iyo Kenya lagu soo dhisay horaan idinku sheegay arrintan inay arrin dhaba tahay oo ciidan lagu soo dhisayo laga ururiyay magaalada Jubbaland oo ogaadeen iyo mareexaan iyo iskugu jira Puntland buuhood leh ciidan dhulbaanta laga ururiyay la 500 gaadhaya dabeedna kilka shanaad lagu soo tababaray ciidanka waa la hubeeyay farmaajo hubeeyay
intii uu talada hayay boqolkii maalmood gobolka maamul goboleedka Burcadbadeedland Puntland Jubbaland waxa uu ku gurayay hub maalin alla maalintii la doortay hubkii uu Puntland geeyay makhraataad ka tiin YouTube-yada ku jirta maalin alla maalintii la doortay inuu hub Puntland geeyay wuxuu geeyay Gado wuxuu geeyay Garbahaadley wuxuu geeyay Jubbaland buu geeyay shirka Kismaayo laga shirayeyna shir Soomaaliyeed ma ahayne wuxuu ahaa shir daarooda Morgan baa kamid ahaa ragga meesha ku shirayay waxa ku shirayay maxaa ku dhaayay Aadan Barre Ducaale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya arintaasi arin yar maaha Jubbalandna waxa la rabaa in Ethiopia lagu daro kilka shanaad in lagu daro oo ay kamid noqoto maamul goboleed ka tirsan Ethiopia kilka shanaadna ay hoos tagto walaalayaal arintani arin yar maaha haddaba waxaan idin sheegayaa way caddahay shacabka magaalada Muqdisho sidii loo bahdilay ee shabaga loogu xiray iyo Kismaayo oo aan amniba haysan oo qarax ka dhacayaan oo dhibaato ka taagan tahay sidoo farmaajo naftiisa ugu aaminay kalsooni darrada uu ka qabo magaalada Muqdisho way caddahay hawiye inaanu kalsooni ku qabin beela xamar degeen aanu kalsooni ku qabin inuu bahdilay inuu shacabkii masaakiinta ahaa ee barakacayaasha ahaa shabag ku ururiyay sharaftoodii dhulka la dhacay qiimahoogii dhulka la dhacay si aan bilaadanimo iyo isaannimo iyo sharaf iyo karaamo aan lahayn uu la macaamilay shabag uu ka salaamay adduunka weligeed may dhicin adduunka wadan kasta oo colaadi ka jirto in shacab masaakiin inta shabag lagu soo ururiyo halka laga salaamo way cadday walaal in loo tashaday beelaha wiyo waxaan leeyahay way muuqataa arintuna waa arin cad haddii aad doonaysaan Jubbaland iyo Puntland ayay Ethiopia ku wadaane haddaad doonaysaan in xamarna lagu daro ka yeela qodobka intaasaan kaga baxayaa ninka xaarmaajo laydhaa wuu fashilmay ballanqaadyadiisii oo dhan wuu beeniyey wuxuu noqday nin qabiil wuxuu noqday nin caadifadaysan wuxuu noqday gacan ku dhiigle wuxuu noqday inuu dawladii afweyne soo dhiso wuxuu khiyaamay beelihii Muqdisho ee soo doortay cashuurtoodii calankii Soomaaliya ayuu ku tuugsanayaa cashuurtu ka qaadana wuxuu ku dhisayaa ciidamada Jubbaland ciidamada Puntland ma taqaanaa sidii loo baabin lahaa hubka dhigista hadday ogolaadaan beelaha Muqdisho haw diyaar garoobaan magaalada Muqdisho inay ka mid noqoto Ethiopia iyo Kenya inay ka mid noqoto qodobka intaasaan kaga baxayaa waxa kaloo idin sheegaya walaal qodobka kale Allahumma salli ala Muhammad anu wixii aan idin sheegayay hortiinay timid hortiinay taala war dawlad daarooday dhisayaan war ciidamo ogaadeen iyo majeerteen iyo mareexaan iyo daarood iskugu jira la tababaraya kilka shanaad baa lagu tababaraya koonfurta Soomaaliya in lagu qabsadaa la raba ummadda Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyaa la raba hortiinay timid walaal magaalada Muqdishona waa taa hubka dhigistii laga bilaabay haddaba waxaan uga digayaa walaalayaal odayaashii ugu tunka weynaa beelaha hawiye iyo beelaha Muqdisho dega shir jaraa'id bay qabteen shirka jaraa'id ay qabteen waxay ku sheegeen inay mudaharaad dhigayaan 4 saacadood gudahoodna ay kaga baxaan faqashta iyo ciidamada ajnabiga magaalada Muqdisho odayaasha sharafta leh waxaan uga digayaa ee beelaha Muqdisho dega in ay arinta go'aanka ka noqdaan inaanay dagaalamin mudaharaadkay qabanayaana uu noqdaa mudaharaad salmiya oo ay shucuurtooda iyo dareenkooda ku muujinayaan haddii ay dagaalamaan haddii ay fooda kiciyaan waa ta la rabo in looga faa'iideysto in lagu xasuuqo in lagu kala qaybiyaa la rabaa markaa waxaan uga digayaa beelaha Muqdisho dega lambar 1 ha isku duubnaadaan waa qodobka koobaad inay isku duubnaadaan ilaa iyo galgaduud maxaan ku leeyahay Hirshabeelle ilaa Shabeellada hoose ilaa iyo Muqdisho mid ha noqdaan walaalayaal talabaad waa in ay si cadaalada ay u doodaan iyagoo fooda iyo dhibaato kicin hubkana yaanay wareejinin adduun weynaha u soo bandhigaan dhibaatada cidda wada marka sidii Ali Mahdi iyo Cabdillah maxaan ku dhahay Jaraal Caydiid yaa looga faa'iideysan haddii ay seeflabood noqdaan oo ay dagaalamaan waa ta la rabo
xagga baarlamanka ha ka soo maraan mooshin ha laga diyaariyo mataqaanaa yaanay ku kicin tallaabo qaldan mudaharaadkaasina waa inuu noqdaa mudaharaad saliima waxaa la doonayaa in ay dagaal kiciyaan ay foodo kiciyaan dabeedna la xasuuqaa la rabaa ninka farmaajo xaarmaajo wuu idinka badiyey intii aad isku mashquulsanaydeen baa ayuu hawshiisii gutay ciidamo maraykan uu keensaday oo 51 nin oo sarkaal maraykana wuxuu keensaday ciidamo daarooda oo Jubbaland iyo kilka shanaad iyo Puntland ka soo xulay maanta waa idinka awood badan yahay hubkii iyo dhaqaalihii uu soo urursaday 10 cisho duulimaadyada wadayna wuxuu u qaybiyay Jubbaland iyo Puntland iyo kilka shanaad ilaa Gaarisa way isku xidhan yihiin waa ka imid gudoomiye ku xigeenkii baarlamanka Kenya aadan barre Cabdulla waa ka imid marka waxaan idinka digayaa si diblomaasiya oo dooda oo saliima oo aan foodo iyo dib lahayn doodiina u bilaaba mid noqda isku xidhma hubka hadhigina diida hubka hadaad hubka dhigtaan way idin dhamaatay waxa la rabaa in mataqaanaa ay qabsadaan ilaa iyo xamar ay qabsadaan dabeedna koonfurta Soomaaliya oo dhan gacanta ku qabsadaan cidda soo hubaynaysa waa Kenya gudoomiye ku xigeenka baarlamanka Kenya aadan barre ducaala kamida markii horena Faarax Macalin buu ahaa Kenya soo hubaynaysa iyadoo u wakiilanaysa gudoomiye ku xigeenka baarlamanka Kenya Ethiopia soo hubaynaysa iyadoo u wakiilanaysa maxaa ku dhaayay madaxweynaha kilka shanaad Cabdi Ileeye arrintan waa arrin qoto dheer aqligu haydin shaqeeyo Somaliland waa in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ula xidhiidhaan had sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa in la xidhiidhaan waa inaad sameeysan xidhiidh hoose beelaha Muqdisho dega iyo beelaha Somaliland waayo arrintan saameyn xoogan ayay labada dhinacba ku yeelanaysaa nimankani waxay ugu tala galeen inay dhul daarood la idhaa ay soo dhisaan waxay ugu tala galeen dhul daarood la idhaa inay soo dhisaan oo ay awood ku qabsadaan maanta Kismaayo iyaga haysta awood bay ku qabsadeen Kenya Ethiopia ayaa maalgelisay iyo reer galbeedka Puntland iyaga haysta cidda ay mari waayeen waa Somaliland cidda ay mari waayeen waa Somaliland maanta xamarna iyaga xukuma idinka ayaa talada siiyay marka waxaan idinka digayaa walaalayaal si salmi oo aqliya oo siyaasada waa inaad gacmaha u qaybsataan nimankiina siyaasiyiinta iyo suxufiyiintiina jaahiliinta ana kuwaana waa inaad meel iska saartaan kuwa idin dilay waa siyaasiyiintiina iyo suxufiyiintiina qulunka qodobkaana intaan kaga baxo qodob kale oo muhiim ah idin tusaya walaalayaal waayahay waxaan doonayaa inaan ka hadlo boofaraas dabacasar ninka dabada milixda lagaga shubo ee makhnuudka ee khaniiska ayaan doonayaa inaan ka hadlo nacdal ilaahay baa ku socota gaal iyo muslim wuxuu yahay lama kala yaqaano waa hadba diidka cad kale waa boofaraas dabacasar weey waa hadba diinta cad kale mar wuxuu ka xaadiraa kiniisaduhu ka xaadiraayu ka dawarsadaa marna masaajidadu ka dawarsadaayo wuxuu yiraahdaa masaajid baan dhisayaa hal ay caawiyo ninkaas oo gurigiisa ka soo toosaya lama arko boofaraas dabacasar ninkaas oo gurigiisa ka soo toosaya lama arko haddaba markuu beelaha wiya caayayo annaga hadduu nacaayo ammaan kama sugayno hadduu SNM caayo SNM ninka khaniiska ee makhnuudka ee maxaa ku dhahay dabada milixda lagaga shubo ee tuumbada biyaha lagaga shubo ya SNM inuu ammaano kama sugayno waayo de SNM waati madaxooga mijow rogtay ee magacooda ifka ka masaxday SNM waati afweyne kiniisadaha ka xaadirisay ee Morgan kiniisadaha ka xaadirisay ee nimanka mareexaan qabiilkooda ayay sheegan kari waayeen muddo 20 sano qabiilkooda may sheeganeen waxay sheeganayeen raxan weyn iyo habar gidir iyo
hawiye iyo bay sheegan jireen waayo gobollada mudug bay sheegan jireen way wada degaan moogta mareexanka waana isku luuqad dadka habargidirka iyo mareexaanku waa isku luuqad 20 sano waxay sheegan jireen habargidir bay sheegan jireen war heedhe haddii anigu waxaan ahay nin reer mudugo oo nin habargidira baan ahayo sacad oo cayro oo waxaan ahay nin caynkan oo nin hawiye abaan hoolaan dheeraha oo war anigu ma ihi daaroodo mareexaan ma ihi daaroodin nacdal ilaahay baa ku dhacday daaroodin kaara galeen oo dambi iyo dunuub bay galeen wixii ay galeen ba hadda waa nin mareexaana ninka sida wallaahi hadda waa nin mareexaana waxa wallaahi oo nu soo joogay inay sheegan jireen beelaha mudug dega galgaduud beelaha dega ee habargidir inay sheegan jireen baan u soo joogo wallaahi waanay wada degaan oo waa isku xuduud marka 20 sano beelaha habargidir sheeganayeen markay Soomaaliland dhex marayaan iyo markay meelaha joogan qurbahay war aduu qolo maanta markaasuu kooranayo war yaa haddii anigu nin habargidir baan aho nin sacada baan ahayo dajara la caydiid baan ku soo jeednaayo deyn soo nagi afooyna wada ridna hadda waa nin mareexaana hadaba waxa leeyahay boo faraas tabacasar adigoo mareexaana waa nagii maalin cad ka saarnay Soomaaliland ee magacaagii ifka ka masaxnay ee madaxaagii mijo u rognay ee kugu kalifnay adigoo mareexaana inaad sheegato habargidir sheegato hawiye sheegato annaga kugu kalifnay maantana waxa la waxa tahay ma jirto kiniisadaad ka tuugsataa masaajidadaad ka kacdaa yaa ilaahay wax siiyay haddii ilaahay muxuu yiraahdaa horta muxuu yiraahdaa markuu hadlayo ilaahay hadduu ilaahay raamiyaa horta waxa weeye walaalayaal marnaba anagu ammaan kama sugayno SNM hadduu caayo dee SNM taariikh bay ku dhigtay mucatab bay u xidhay kiniisada ay ka xaadirisay waxay ku kaliftay inay tuugsadaan SNM waxay ku kaliftay inay qabiilkooda ay qariyaan SNM waxay ku kaliftay in ay habargidir sheegtaan iyo beelaha hawiye inay raxaweyn iyo sheekhaal iyo sheegtaan bay ku kaliftay marka horta SNM hadduu caayayo ammaan kama sugayno waayo SNM de taariikh bay ku dhigtay horta waxa weeye marka boo faraas tabacasar waxaan leeyahay dabadaada xun milixda ku shub dumarkaagi baad u tagi kar weyday gidaaradaas aad seexanaysaa maalinba gaadhi baad dhex seexataa masaajidadii aad ka tuugsanaysana way ka soo xidhmeen waxaanu leenahay hadda tusaalaan idin siinaya anigu horaan idinku sheegay dadka qabaa'ilka Soomaaliyeed al-shabaab ku shaambadeeya cid kale ma aha baan idin yiri waana cadaatay boo faras tabacasar baa kowka dahabshiil buu al-shabaab ku sheegaya hormuud buu al-shabaab ku sheegaya oo dahabshiil iyo hormuud yaa leh dahabshiilna dad reer sheekh saxaaqa baa leh dahabshiil nin reer sheekh saxaaqa baa hormuudna dahawiyaa leh waa labada shirkadood ee ugu caansan gayiga Soomaalida waa labada shirkadood ee Soomaali badbaadiyay waa labada shirkadood ee hadday abaara dhacaan hadday cudur dhacaan haddii ma taqaanaa colaade dhacdo hadday dhibaato dhacdo albaabadooda la garaaco weey waa hormuud iyo dahabshiil weey bal ilaahay baa kugu dhaarshaye ma wax kaluu sheegu garan waay cadaawadda ay noo qabaan faqashtu markay nala dagaalami kar waayeen markay aarsan kar waayeen markay wax kala qaban kar waayeen ayay bilaabeen inay gaaladii basaas u noqdaan inta kiniisadaha ka xaadiraan qodhus qadhas inay nagu shaambadeeyaan argagixisay iyo waxa jira dadka mar walba qabiilada Soomaaliyeed argagixisada ku shaambadeynaya waa gaala yar weey waa faqashta weey boo faraas dabacasar baa kamid ah hadaba horaan idinku sheegayo idin lahaa wali taariikhda may dhicin abid waana godob taariikhiyo umada Soomaaliyeed ka galeen in qof muslina oo ashahaadanaya oo sunniya oo maxaan ku dhahay ilaahay abuurtay in gaala lagu soo jeeyo qof muslina oo damiir leh yaani damiirkiisu ma siinayo dadnimadiisu ma siinayso laakiin iyagu waa kuwa kadin walba waxay la taagayeen daabshiil ba al-shabaab Soomaaliland ba al-shabaab
beelaha wiya al-shabaaba hormuud baa al-shabaaba maxay rabaan inayna baabi'iyaanay magaceenna ifka ka masaxaan bay rabaan maxay rabaan marnaba teelay noomay dhigan marnaba naxariis iyo soomaalinimo iyo islaamnimo noomay dhiman taasi waxay ku tusaysaa cadaawadda iyo maxtaqaanaa colaadda ay noo qabaan bay ku tusaysaa haddaba walaalayaal ninkii boob faraas dabacasar maalmahan waxa uu lahaa al-shabaab beelaha muqdisho waxaa qarxinayaa waa somalilan maxaa ku dhaaye al-shabaab baa maalgelisa hormuud baa maalgelisa taasi waxay kuu caddaynaysaa dadka mar walba gaalada soo jahaynaya ee ummadda soomaaliyeed al-shabaab ku shaambadaynaya ee doonaya in la cidhib tiro inay faqashtaan idiin sheegaya waxaana tusaale ku ah boob faraas dabacasar haddaba maxaa keenay boob faraas dabacasar inuu yidhaahdo al-shabaab baa dahabshiil baa al-shabaaba iyo hormuud baa dee wuu tuugsi tegey yaa la waxsiiyey buu yidhi dhowr jeer buu yidhi masaajid baan dhisayaa oo uu dahabshiil u tegey markaasaa dahabshiil waxoogaa soo siisay tiri waa yahaye dee masaajidkaaga ha la arko waan masaajidkan aan la aragee dhista una muxuu aha dee markii dambe waxaa la ogaaday ninkani inaanu dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo sharaf iyo ixtiraam iyo dadnimo iyo damiir midnaba lahayn oo isagoo 70 jira oo tii hoose iyo tii sare ciradii futada ku taallay iyo tii madaxuba caddaatay oo hablaha uu dhalay ay wax sii dhaleen uu sodog yahay oo mataqaanaa isagoo da'daas ayaa la ogaaday inuu yahay wax bilaa dhaqan oo bilaa damiira oo baraha bulshada beelaha Soomaaliyeed ka caaya oo diintii Ilaahay ku qalaabanaya oo bilaa akhlaaqa qofku marka uu yahay walaalaya uu diin garanayo diinta Ilaahay baa xidha iimaanka xidha damiirka xidha dadnimada xidha edaabta xidha akhlaaqda xidha miyaad aragtay nin weyn oo 70 jira oo intuu baraha bulshada soo fadhiisto qabiilo Soomaaliyeed caayaya oo wixii afkiisa ku soo dhacay sheegaya miyaad aragtay oo haddana aayadihii Ilaahay daliilinaya dhaqan xumada iyo diin la'aanta iyo damiir xumada nimanka faqashtaa leh sheekhooduna waa dabacasar waa boob faraas dabacasar waa ninka bilaa dhaqanka bilaa damiirka culimadeena waaweyn waad aragtay culimada hawiye waad aragtay culimada hawiye waad aragtay weli sheekh weyn oo caalim oo hawiye oo dadka caaya miyaad aragtay weli sheekh saxaaq oo dadka caaya miyaad aragtay sheekh maxamed sheekh cumar dirriya waad aragtay de sheekh mustafa xaaji haaruun iyo de waa sheekh saxaaq aadan siire iyo sheekh barbaraawi iyo culimo waaweyn oo halka ku soo koob de dacwadda Ilaahay bay u gudbiyaan sheekh aanu aflagaadayn oo caayin ma jirto sheekh umal buu wax ka sheegay sheekh raagu wax ka sheegay culimadii hawiyu wax ka sheegay sheekh maxamed sheekh cumar dir buu wax ka sheegay sheekhii wax culimada ummadda dacwadda gaarsiinayaba uu caaya uu aflagaadaynay wax alla wuxuu xeeriyay iyo wax uu mataqaanaa ixtiraamay ma jirto ninkaasi waad aragteen akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wajigiisa ay ku qoran tahay nin weyn oo 70 jira oo sheekh sheeganaya sheekha ku sheegina sheekh maaha waa shar yuurura weey sheekh maaha waa shar yuurura waa aafo in nacdal Ilaahay baa ku socota hadda imika sidoo noqday waa adiga arkay wajigiisa nacdal baa ka muuqata uu googo'ay sidoo noqday waa adiga arkay iyo sidoo eeg yahay gurigiisa ma tago caruurtiisa uma tago meel hudheel uu habeenkii ka soo hadlaa gaari yar oo bas yar buu wataa ayuu ku tuugsado weli baskaas oo uu rakaab saaraya ma aragtay gaariga yar uu wato rakaab ku qaadaya ma aragtay meel uu ka shaqeynaya ma aragtay isagoo oo mataqaanaa wax sheegay ma aragtay waa xayraanka dib jirka ee marna gidaarka seexanaya marna mataqaanaa hoteelka waa laga bixiyaa magaalada uu ku dago dadka jooga buu yiraahdaa meelan seexda walaalisiya gaariga sidaan u seexanaya baan ku googaaya hoteelka waa laga bixiyaa bal ninka noocaasa ee dhaqanka leh ee bilaa damiirka ayuunba ummad wax ka sheegaya haddaba hadday mareexaan damiir leeyihiin oo ay ummadda ay dhaqan leeyihiin
dee boob faraas dabacasar bay ummadda ka qaban lahaayeen waad aragtay cabdi xoosh ninka la ydhaa isna waa nin mareexaana cabdi xoosh ninka cabdi xoosh la ydhaa wuxuu ahaa dirawal buu ahaa dowladdii afweyne isagoo dirawala ayuu hantidii ummadda markii ay hanti wadaagga sameeyeen ee ummadda xoogga kaga qaadayeen xoolaha iyo dulmiga ayuu ka taajiray cabdi xoosh waa nin weyn isaga iyo boob faraas dabacasar waa isku mid ninkaasina dhaqan xumadiisa intuu miidiya soo fadhiisto ummadda ka caaya qabiilada ka caaya isaaq caaya hawiye caaya waxa dhaqankaa leh bilaa dhaqankii waa dadkaa weeye haddaba hadday xishoonayaanay soomaalinimo xeerinayaan ninkan weyn ee waalan shaarubihii wuu iska xiiray iminka shaarubihii markii aan idhi waa yuhuudo shaarubahay la baxaan wuu iska xiiray shaarubihii markuu hadlayo waan yaabay xalayoon daawanayayoo afkiisa waxaad mooddaa inuu madfac ku dhacay foolxumada waxaad mooddaa sibiishii lo-daad mooddaa afkiisa war ninkaa dabada milixda lagaga shubo ee makhnuudka ah ee khaniiska ee ummadda soomaaliyeed khaniisnimada ku caayaya ee bilaa dhaqanka ah waxaanu leenahay al-shabaab dahabshiil waxba kama sheegi kartid dahabshiil waa bangi caalamiya adduunka oo dhan buu ka shaqeeyaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin dahabshiil ummadda soomaaliyeed wax badan buu taray hadday abaaro tahay haddii ay tahay mataqaanaa maxaan ku dhahaye xanuunno tahay hormuud iyo dahabshiil labadaa shirkadoodba ummadda soomaaliyeed waa labada shirkadood ee badbaadiyey wey haddaanay jirinna ummadda soomaaliyeed way dhiman lahay waayo dheh kow dee markii xawaaladahoodii la xidhay ee argagixis ahaan loo xidhay labada shirkadood ee wax lagu soo xawilanayay hormuud iyo dahabshiil baah weliba dahabshiil baah hooyada maanta khaliijka joogta iyo ta yurub joogta iyo ta $100 waxay ku soo hagaajisaa dahabshiil bay ku soo hagaajisaa waxa weeye markaa haddii isagii noloshii ka dhacay oo uu darbajiif yahay oo uu kolba milix dabada iskaga shubo oo dumarkiisii u tegi kari waaye oo wax alle wuxuu soo kordhinayaana jirin oo isagoo 70 jiro ummadda caayayo dee dahabshiil ummadda soomaaliyeed wax weyn bay u qabatay ummadda soomaaliyeed baana makhraati ku ah maantana waa bangi caalamiya weeye dahabshiil international bank weeyaan waa bangi caalamiya weeye adduunka meel walbana way ka furanta haddaad munaafaqadaada iyo xaasidnimadaada isleedahay gaalada ku soo jeheeyo oo al-shabaab lagu shaambadayo adaaba al-shabaababa boob faraas dabacasar ayaa waxaan ku idhi hadda iminka VIP daa ku daba jirta waa la daba socdaa maalin dhow waa la qabanayaa 2 jeer baa VIP da Mareykanku ay qabatay oo su'aalo la weydiiyey oo laga shakiyay waa lagu daba jiraa hadda iminka facebookiisa la socdaa dhaqdhaqaaqiisa laga socdaa waxa la ogaaday inaanu shaqayn waxa la ogaaday inaanu waxba qaban waxa la ogaaday shaqadu hayo waa lagu daba jiraa hadda iminka isagaaba al-shabaababa marka waxaanu leenahay adeerow dahabshiil ma gaadhid dahabshiil waa bangi caalamiya ummadda soomaaliyeedna wuu badbaadiyey haddii aad ka tuugsatay oo ay ku diideen oo adoo xooggaa leh oo da'daasa oo mataqaanaa sidaa u muruqyo waaweyn dee nin ummadda caayaya oo 70 jir oo bilaa dhaqan oo bilaa akhlaaqa oo bilaa damiira oon xidid iyo xigaal iyo gacal midna xeerinayn oon isla yaabayn oo intuu mindhiyaa soo fadhiista ummadda caayo haddana sheekh sheeganaya halkeebay iska qabanaysa war sheekhu edaab buu leeyahay dee sheekhu dhaqan buu leeyahay dee sheekha diintaa xidhadee sheekha iimaankaa xidhadee sheekhu akhlaaq buu leeyahay lagu yaqaano sheekhu dadka ma caayo siyaasad ma galo qabiilada ma aflagaadeeyo sheekhu dacwaddaa ilaahay buu dee gudbiyaa cilmigaa iyo diintaa uu bartay buu ummadda u gudbiyaa war sheekh war magacii sheekh waa disheene sheekhooduna waa boob faraas dabacasar waxa unbay ku odhanayaan sheekh dabacasar unbay war sheekha ka daaya ku sheegina sheekh maahe waa shar yuurura waa shaydaan yuurura waa gaal weeyi nacdal ilaahay baa ku socota makhraati waxaan ka ahay inuu marna kiniisadda galuu ka tuugsado marna masaajidada uu ka kacu idhaahdo walaalayaal haddii ilaahay badankeeda leeyahay walaalayaal haddii ilaahay idankeeda leeyahay haddii ilaahay idankeeda leeyahay walaalayaal masaajid baan dhisayaa laha layla dhiso makhraati baan ka ahay ma idin tusaa iminka
ma idinku soo celiyaa waa kan isagoo tuugsanaya bal daawada daqiiqad yar bay soconaysaa iyo su'aalaha la weydiinayo ila daawada inaan been idiin sheegayaad moodaysaa war anigu been kama sheegate ila daawada waa kane وبرتام كان شقين الصو سيرفيس كيغا حقو كان سو غليا adoo diinta ku meermeeraysa okay hada gacali okay wuxuu weydiiyay xoolaha adeesho hadii la gid maayo xagaad ka keentaa xoolaha aan helo I teach and I educate and I preach dadka aan u tago way invite garayaan way soo dhaweeyaan gaaskana way bixiyaan laakiin xoolo anigu aan helo oo aan kala waxayo iyo ama hadda tan magaalada la joogo lacag meel la warayst mal hal inoo hal dollar si ay ku jiraan maxaa income kale soo galo ka wada aniga back square 10 years macallin baan laakiin aniga waxaan qabto xawayaan invitation baan helaa waa tagaa oo soo khudbeeyaa gaaskana waa iga bixiyaan dadka aan u tago oo soo dhaweeyaan waa ila shay that's it ma sha Allah magaalada soo fala oo xiriirada ma jira oo amadina diina ma dina ma abura wax sidaas ma jira hadal gacali fur soo falaad mid gaar ah oo shaqeeyo ma jirto wax dawladda shaqeysaa ma jirta بدي الشغل أنا ويدي واحد ما هذا هذا دورته وش غيرها وهذا ما كبير لها طبعا كل دور ما لما تكون دور بشي إمام كي يصير لها يعني حج كي قبل كذا ما يصير لها نوعها إمام بالله يحر لها حدروين بالله يقبل لها سنة وشي خبر بإمام فرايرس بالله يدشل بس كي كان لا ترجع لي هلقا سيحنا كاكو تصدرتك هلقا قبو هلقا سيحنا مسكين لا markuu dadka tuugsanayo waa miskiin eeg dhabarku intuu leegyahay iimaanka ilaahay kaa qaad bal waxa feedhaha alaba tuugsanaya ka war bal dhabarku intuu leegyahay eeg nacdali kugu dhacday oo ilaahay ummadda kaa qabay marna gaadhigaasuu seexdaa marna hoteelkaa laga bixiya ساجد كائنات بس هذا رقدي ان شاء الله هذا ما دام ادوق بتن فيديو عارف ساجد كائنات بس هذا رقدي ساجد الناس شنو لبس labada inoo meesha u karaysan tahay oo bildikaan oo dhan iska yihiin oo carrada dhan maalo waa labada oo naladina kula tahay waa labada nin waa labada nin ayo kaas wallahi hadda dood dhigaysidee waa labada nin ayo ka hadda xid war dhigaysidee waa labada nin aniga maxaan ugu jeedaysaa oo ugu tun weey marka ay ka lacag saaj wax ka dhisay raga tarageeda insha Allah bas anaku عليك كان مش بس كيف علينا كان مسنا نرجع عليه والله warku waa cadi miskiinka alle markuu tuugsanayo waa miskiinka alle markuu dadka caayayana waxa weeyi waa dijaal cawar weey miskiinka alle warku waa cadi su'aal baan idin weydiinayaa dahabshiil miyuu tuugsadaa dahabshiil masaajid ma ku tuugsadaa dahabshiil ma taqaanaa gidaar ma seexdaa dahabshiil dadka ma caaya dahab bal afku bal siduu u eeg yahay iyo nolosha ka muuqata ilaahay baan kugu dhaarshay bal xooguu leeyahay masaajid ku tuugsanaya masaajidka ila dhisa walaal miskiin alle masaajidka ila dhisa walaalo yaa masaajid ila dhisa walaalaya sonkortaa la gaastaa la iga bixiyaa buu yiri yaa miskiinka alle way muuqataa haddaba dahabshiil wax kale kuma haystee dee mar walba markuu u tegey xawaaladda dahabshiil tegey ee uhi yaa ilaahay wax siiyee loo dhiibay ayaa la yidhi war dee shaqayso xoog baa ilaahay ku siiye shaqayso oo isla yaab oo iska daam masaajidkan uu sheego ma masaajid aan la arag baa
masaajidkan uu sheegaa ma masaajid aan la aragba halkay ka gashay eeg halkay ka gashay bal eeg ilaahay baan kugu dhaarsheeyey ninka aayadaha ilaahay beeniya ee sidii ilaahay u sheegay aan u sheegin ee majara habaabiya ilaahay naartuu ku fogeynaya nacdal baa ku soconaysa ninka diinta ilaahay ku shaqaysta ku qaraabta ninka beydka ilaahay ku shaqaysta ku qaraabta isagana nacdal baa ilaahay ku ridayaa ummaddu ka dhex saaray waa kaa ilaahay ummadii ka saaray waa kaa guryaha maxaa gawaarida seexanaya waa kaa derbiga ka soo toosaya waxaa noocaas ee dhaqankaa leh ee tuugsanaya bakhtiyaya ayaa dahabshiil wax ka sheegaya ilaahay baan kugu dhaarshay adeerow waxaanu leenahay sirtaadii baanu haynaa ummaddii soomaaliyeedna ku aragtay wax bilaa dhaqana oo bilaa diina oo bilaa dadnimoa oo bilaa damiira oo dhintay oo aan wax alla wax uu xeerinayo wax xadaynaya aanu jirin baa tahay dahabshiil ma gaadhid dahabshiil ilaahay baa maalkiisa siiyey tukaan buu ka bilaabay magaalada burco tukaankii iyo wixii yaraa iibinaya ilaahay u qarqarxiyey waa xalaal maal weeyi dahabshiil xalaal maal weeyi ilaahay baa barakeeyey boqolaal kaa badan oo xaasidiina baa waxba ka qaadi waayey casalla waaba adiga oo kiniisadaha ka xaadiraya oo masaajidada ka kacaya yaa ilaahay waxsiiya miskiinka alleh masaajidka ila dhisa haddii ilaahay idankeeda leeyahay masaajidka ila dhisa haddii ilaahay idankeyga leeyahay yaa ilaahay waxsiiya miskiinka alleh yaa waxsan allah shaqayso xoogaa intaa kulega iimaanka allah kaa qaad orodode xaarmaajo aad difaacaysa ee qofkii wax ka sheegabaad afka kaga boodayso hablo badan oo beelaha hawiyaha oo ninkaa farmaajo cambaareeyey ayuu caayay farmaajo yaa doorma isagaa doortay farmaajo waa la caayayaa waa la cambaaraynayaa waa tuug weeye khaayina waa gaal weeye shuuciya waxa weeye xaarmaajo waxa weeye waa inanku afweyne dhalay faqash weeye ummadda wuu khiyaamay annagaa leh waanu caayi wax walba waa laga sheegayaa war adigu tuugsigan iska daayoo shaqaysaanu leenahay walaalayaal waad arkaysaan isagana waayahay qodobkaana halkaa kaga baxo qodobkaana haddii uu mar dambe hadduu hadlo dahabshiil horta waxaan leeyahay dahabshiilow nin lacag labaad tahay dahabshiilow nimanka al-shabaab kugu sheegaya soo caddeeya dheh hadday soo caddayn waayaanna qabiilkoodaa la yaqaanaa oo mareexaan oo meel walba jooga mataqaanaa cid walba qabiilkiisaa la yaqaan oo halku joogaa la yaqaanaa dahabshiilow ha ka aamusin nin maalqabeena oo adduunka laga ixtiraamaa tahay cid alle ciddii al-shabaab kugu sheegta soo caddeeya dheh ninkan boob faraas dabacsar ha soo caddeeya halka dahabshiil iyo hormuud shirkadda hormuud iyo shirkadda dahabshiil ha iskaashadaan halka ay al-shabaab ku yihiin ha soo caddeeyo caddayn baa looga baahanya hadda qodobkaa wuu ku xidhmaya qodobkaa isaga ayaa ku dhimanayo wallaahi haddii loo tix raaco wuu iska hadlayaa dahabshiil waxaan leeyahay cabdikariin dahabshiil daahir cali soobaa lagu dhaafay oo muddo malaha dhowr iyo 10 sano aydu argagixisaydu ku sheegayay ha dhaafina waxaan idiin sheegayaa ninkaa waa in dad loo diraa waa in la yidhaha soo caddee qabiilkiisaa la yaqaan waa mareexaan waa faqash weeyi ha soo caddeeyo meesha dahabshiil iyo shirkadda hormuud ay al-shabaab ku tahay hadduu soo caddayn waayana isagaa u maqan waaya qodobkaana halkaan kaga baxo waaya walaalayaal tahriibkaan idiin sheegayaa tahriibka maalmahan qadaad weyn baa buunbuuninaysay hablihii inantii la garaacay iyo inankii bay garaaceen waxba uma qabanayaana innagay nagu xumaynayaan ma garatay dee iyaguba way tahriibaanoo meel walba way ku dayacan yihiin tahriibkaan mu doonaya markaa qodob inaan tahriibkaa ka hadla haddii ilahay qodob tahriibka ah ayaan doonayaa inaan ka hadla marka runtaan idiin sheegayaa maanta soomaalidu runtay ka gubataa ka war iga dhimayey oo kaa dhimay kidhintabowhaani iga dharagyey haadu kuye away dhalinteeni waa muusanow dheer dhambaaliyo tusaalaha
ummad yahay waa muuse nowdheer dhambaal iyo tusaalaha ummad yahaydii indigo qofkii dhaga qabow maqalkani waa dhulkiini waa kaad ku dhalateen waa kaad u dhimateen waa kaad ku dhaqanteen waa kaad ku dhisateen waa kaad u dhalateen ilmadayga dhacaysaa waa qabiilka dhaafay waa dhalasho diriraay waa dhalanka koriyaay waa dhaxanta dayraay waa dhurwaga qadiyaay waa dhowrta celiyaay wakhtiyadan dhammaadka qof waliba dhibsoo arag wakhtiyadan dhammaadka qof waliba dhibsoo arag dhul shisheeye waa nimid dhibtiisi aragnaye maxa nolol ka dhiganaa dhul shisheeye waa nimid dhaftiisi aragnaye maxa nolol ka dhiganaa runtaan idiin sheegaya waryaadhaheen dhalinyaroy war waa innagii dhalinyaroy maxaad beenta iskugu sheegaysaa waxaan inagu isyeelaynamay gaadhin war marka aad soo tahriibayso eed guriga hooyadaa ka soo baxaysa iyo aabbahaa aabbiyo hooyadaa ma kala tashatay runtaan idiin sheegayaa maanta aabbiyo hooyadaa ma kala tashatay reer somalilan ma kala tashataa siiraayo ma kala tashatay oo ma tir waan tahriibayaa adiga oo aan cidna kala tashan oon cidna u sheegin habeen iyo maalin goor aan habeen ahayn maalin ahayn baad ka baxdaa hooyadaa inta dahab ka xaddo hooyadaa inta lacagta ka xaddo iyadoon lagu ogeyn marka alla marka lagu qabto ayuunbaa lagaa war helaa war maxaad beenta iskugu sheegaynaa ka tahriibayaa waa adiga aan cidna la tashanayn walaa xukuumad baa la eedeeya walaa waalid baa la eedeeya walaa cid kalaa la eedeeya maxaan beenta iskugu sheegaynaa adigaan goor aan habeen ahayn maalin ahayn gurigiinni ka baxay kuwa dadka garaacaya waa Soomaali kuwa tahriibinaya waa Soomaali kuwa waalidka lacagta soo weydiinaya waa Soomaali kuwa muqafa ku geynaya waa Soomaali kuwa Liibiya ku geynaya waa Soomaali war ninka Liibiyaanka ama isaga Hargeysa kuugu yimid ma isaga Burca kuugu yimid ma isaga gurigiina ka soo kaxaystay dad nin aanad garanayn oo mukhallasa oo muqafa oo soo magacaaga kula sheeganayo Soomaali ahayn ayaa ku odhanaya anaa ku tahriibinaya halkan aynu ka baxaynaa halkan aynu maraynaa kanaynu maraynaa adigoo inana iyo adigoo wiila adigoo gabadha adigoo wiilka waa caadi ninka ragga waa kii kicee kufee haddana kicee kufee kubkiyo bowdyada ka kala jabee kaca ee kabma war ninka ragga dhib baa loo abuuray ha dhinto ha tahriibo laakiin adigoo inana oo caara oo aan wadan maxaa ku dhaaye muhrim aan wadan sidii ilaahay sheegay muhrim ma wadatid cid ka mas'uul ma jirto adigoo hilib bisila oo dheeh leh oo qurux badan ayaa gurigii hooyada iyo aabbaha intaad ka baxday adoon cidna la tashan ayaa nin waraaba aad raacaysaa cid alle cid u yahay aanu jirin siduu doonuu ka yeelaya hablaha ninka garaacaya nin Soomaaliya buu ahaa nin carabi ma garaacay ninka garaacaya ninka tahriibinaya ninka lacagta qaadanaya waa Soomaali weey waxa idin leynaya waa Soomaali weey maxaynu beenta iskugu sheegin maxaa madaxda loo eedeynaya war madaxda maxaad u eedeynaysaa adaa qaldanay madaxdii haddaad ka tahriibtay oo aad dhulkii u cidlaysay dee isagu waxbuu bartay maxaad ninka wasiirka u eedeyn maxaad ninka madaxweynaha u eedeyn ninka madaxweynihii waxbuu bartay wuu dadaalay intaad adigu tahriibaysa wuu dadaalay dalkiisii buu aaminay madaxweynuu noqday ubadkiisii qurbuhu dhoofsaday wuu shaqaystay maxaad u shaqaysan weyday yaa soo saaray Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo isaga ay soo saaray yaa soo saaray wasiirada iyaga ay soo saaray dahabshiil yaa soo saaray isaga ay soo saaray Omar yaa soo saaray Maaweel yaa soo saaray Baxsana yaa soo saaray
geella arab yaa soo saaray xoogsada yaa soo saaray bal waxaad noogu sheekaynaysaan annaga eeg waar markaad naftaadii halaagtay eed adigu dhimashadii doonatay eed intaad hooyadaa iyo aabbahaa xadday waddadaa dheer ka baxday eed waraabaha gacanta iskuu gelisay baad haddana ooyeysa runtaynu isku sheegaynaa kullu fidma cinda geel adigaa qalad kala dhalinyaroy adaa naftaada badbaadin kara dalkaagii baad nacday dadkaagii baad nacday xoolahaagii baad nacday kalluunkaagii baad nacday hooyadaadii iyo aabbahaadii midha tamaadhadaa kugu soo korisay baad cidla kaga dhaqaaqday adigoon la tashan gurigaagii baa lagu iibinayaa khasaare laxaadlaad ayaad keensatay qurbaha marka tagtana kaamam caydhaad gelaysaa guri baad hoosta ka gelaysaa xirfad maad baran aqoon ma lihid qurbihiina waxba ka soo kordhin maysid ehelkaagiiyo dadkaagiina waad khasaarisay dalkaagiiyo dadkaagiina waad khasaarisay war qofka dhimanayaa waa adiga tacsidu cidday u taallaa waa hooyadaa iyo aabbahaa axmed maxamed maxamuud siiraayo uma taalla maxaa kaa galay miyaad la tashatay cidda dhimanaysaa waa adiga inanta la kufsanayaa waa adiga inanta la garaacayaa waa adiga cidda la garaacayaa waa adiga cidda dhimanaysaana waa adiga cidday tacsidu u taallaa ma axmed maxamed maxamuud siiraanya la ma aha axmed maxamed maxamuud siiraanya gurigiinnii bay tacsidu taallaa hooyadaabaa goblantay aabbahaabaa goblamay cidda lacagtii iyo ilmihiiba waayeysaa waa hooyadaa iyo aabbaha cidda dhibaatadu ku hoos noqonaysaa waa hooyadaa iyo aabbaha baaniyaynaan isku sheegin waryaa runta aynu isku sheegno liibiya markaad ka soo baxda waad qarsanaysaa adoo kaamam caydho ku jira oo dhibaatadaa soo maray oo lagu kufsaday oo lagu jirdilay oo 5 bilood kaam ku jiray sidii adhiga lagu garaacayay ayaa marka aad jarmalka tagtee kaamam caydhaad gasho aad isku soo sawiraysaa meel yaroo doog loo hooyada aanay lahayn hadda baktigaa kuu xalaala caydh baad qaadataa wax alla waxa tahayna ma jirto markaasaad leedahay waxaan mataqaanaa raaxaan ku jira oo walaalkaagii Soomaaliland joogay ama dhulka kala joogay aad soo waalaysa oo Facebook soo dhigaysaa meel aanad lahayn haddana container baad ku jirtaa dhul hoostii baad gashaa dhul hoostii ayaad gashaa kaamam caydhaad ku jirtaa qansiirkaad gowracda xashiiskaad xaadha xoolahaad raacda xamaal baad tahay beerahaad qota war maxaan beenta iskugu sheegaynaa adigaa dhibtii qarsanaya adigaa darxumadii qarsanaya adaa gurigiinni ka soo baxay adaa soo tahriibay adaa hooyadaa dhibaateeyey adaa aabbahaa dhibaateeyey maxaa kaa maqan maxaad u ordaysaa maxaad qurbaha ku haysataa runtaan idiin sheegayaa qurbaha maxaynu ku haysanaa bal qurbaha waxaynu ku haysanno maalinta aad caydha yar isku geysana caydha yar maalintaad isku geysana hargeysaad tegaysaa iyo burca iyo gaadhilaan gurustaloo VIP aad kaxaysanaysaa lacagta yareed caydha iyo qaansiirka ka soo urursatay iyo xashiishka iyo bacaha iyo baabuurtaad meydhaysay ka soo urursatay ayaad la tegaysaa markaasaad inta tay iyo suul xidhataad iska dhigaysaa wax laga yaabay iska dhigaysaayo dhalinyartii iimaanka qabtay ee dalkooga aaminsaneed aad soo waalaysaa waa runta aynu isku sheegna dhalinyaroye dhibaatada kullu fidma cinda geel dhibta innagaa leh wax waddankaaga kaa soo oriyey ma jiro haddii aad noloshaada kaafiyayso adigoon tahriibin baad isa soo saari karaysaa ood waddankaaga ka shaqaysan karaysaa haddaad waxaad baratay iyo aqoontaada aad la timaado xukuumaddu way ku caawinaysaa bangiyaa dalkii ka jira war waxaanaan doonayaa ha layla qabto ma tiraahdid xukuumadda uma cabatid shaqo uma doonatid adiga oo aan cidnaba la tashan baan goor aan habeenna ahayn maalin ahayn gurigiida ka baxdaa ilaa waynu isgaranaynaa waynu isfahmaynaa dhalinyaroy hooyadaa lama tashatid walaalkaa lama tashatid abtigaa lama tashatid adeerkaa lama tashatid ayeydaa lama tashatid madax lama tashatid adiga oo sidii xoolaha iska socda rag iyo dumar wax alla waxa tahay aan garanayn ayaad halkaa maraysa hadhowna ha layga soo gaadho waa lay garaacayaaye hooyadu haddii aanay beer lahayn oon jiidhku kuu damqanayn waxaad istaahishaa in lagu dhaha lagu googooyo in lagu dhaho sharaftaadii baad dhulka la gashay soomaalinimadii baad dhaawacday muslimnimadii baad dhaawacday sunninimadii baad dhaawacday nimcadii iyo khayraadkii iyo barwaaqadii ilaahayna siiyey baad ayaad saluugtay meel aad ku socotana lama yaqaano waayahay qurbaha kaalay maxaad ku qabtaa qurbaha maxaad ku qabtaa maxaynu been iskugu sheegaynaa anigaad kolba life iga soo galaysaa container
anigaad kolba laaf iiga soo galaysaa kontiindar iyo ma taqaana adigoo iminka 20 qaansiira soo gowracay oo intaasoo xashiisha soo xaadhay oo intaasoo beera soo qoday oo meel walba ku silicsan ayuun baan halkan life soo runta aynu isku sheegnay qurbaa maxaad ku qabtaa mar walba waxaynu kaga qiimo badnayn aynu kaga sharaf badnayn waddankeena aynu kaga sharaf badnayn war haddaba runtaan idiin sheegaya walaalayaal maanta qurbihii waynu aragnay dhibaatadiisiina waynu aragnay war dhalinyarteenna waddankii joogta ma badbaadsanna innaga mustaqbalkii waa inaga xumaaday qurbihiina xaaladaynu ku noolnahay waad aragteen runtaan idiin sheegayaa wax ma barataan ma shaqaysataan caydh baad qaadataan kiniisadaha laga soo ururiyey kontiindharaad ku jirtaan kuyuubaad u gashaan qaansiir kiniisadahaad ka wada xaadirteen waryaa runtaan idiin sheegayaa maxaa la iskaga oohinayaa dadka liibiya lagu garaacaya liibiya mayadaa ku soo doonatay adaa doontay ilaahay kibirka ma jecla madaxna yaan la eedayn waalidna yaan la eedayn dalna yaan la eedayn shaqaabuurna yaan la eedayn labadaada lugood baad dhibaatada ku doonatay bal ninka la garaye inanta caarka ah ee guur sugaysa ee quruxdaa leh ee sharaftaa leh maxaa ku kalifeynay waraabo afka uga gasho ee aan muhrim wadan ee aan cid ka mas-uuli jirin ee hilibka bisila intay gurigoodii iyo sharaftoodii ka tagtay bay qadaanadnimo iyo jaaranimada ka dooratay maxay nolol haysataa maalin walba iyada oo la soo kufsaday baad arkaysaa ee maryaheedii bannaanka loo soo dhigay sidii la doono laga yeelay maxay nolol haystaan istriis bay wada qaadeen way wada waasheen kuwa intay sacuudiga ka tahriibeen sacuudiga iyagoo shaqaystay oo lacag haysta sacuudiga ka tahriibay ee masar doontu kula degtay balaag ilaahay baan kugu dhaarshay 500 oo qof int badankooda sacuudi bay ka tahriibeen yurub maxaa yaala maraykanka maxaa yaala war runta aynu isku sheegno oo yeynaa khiyaal iskugu sheekayne waalidna yaan la eedayn dawladana yaan la eegayn axmed maxamuud siiraan waxba kaama gelin adiga waxba kaama gelin kalamaad tashan waxba umaad sheegin soo maad garan dhibtana aad haysata maad odhan adiga oo bacti mirayan yaroo caagadoo biyo wataad ka soo baxday gurigiinnii ood bahdilaad iyo darxumo iyo silc qaadatay oo xoreeyin sidii xoolaha lagugu xaraystay oo lagugu garaacaya oo lagugu jirdilaya gurigiinnii baa lagu iibinaya dhulkiinnii baa lagu iibinaya hooyadii midha tamaandhadaa iibinaysa baa dhibaatadaasoo dhan qabta qurbaha marka tagtana kaamam caydhaad gelaysaa waxaad leedahay hooyo waxaan sugayaa sharci baan sugayaa hooyo shaqo ma hayo haye khamriga waxaad ku cabbaysaa iyo xashiishada marka dambena tareenkaad isku dhigaysaa ilaahay baan kugu dhaarsheeyey waa runta aynu isku sheegnay dhalinyaroy qaladka innagaa leh kullu fidmi cinda geel qaladka innagaa leh sidee baynu ku badbaadinaa dhalinyarteennaa maanta waddankii joogta ee wax baranaysa runta aynu u sheegno qurbaha nololima taallo qaansiirka iyo kiniisadahaasaa laga xaadiraya dadku waa wada hiliblayaal dadku xoolahaasay wada raacayaan maxaa ku dhahay beerahay wada qodayaan baabuurtay dhaqayaan xashiishkay wada gurayaan waa wada cali wada bacoole waa wada qadaamad waa wada jaariyad runtaan idiin sheegaya waryaah yaan been la isku sheegin caydh baad wada qaadataan waxa weeye runtaynu isku sheegaynaa haddii xaqiiqda bannaanka lasoo dhigo oo dhalinyarta runta loo sheego oo waalidka runta loo sheego wallaahi baana cidi soo tahriibteen maalin alla maalinta mugafaku qabsadaad leedahay maxay soo watay sidan maan moodayn wallaahi sidan haddaan moodayo waddankii kamaan imaanay maalintaasuu waddanku ku macaanaanaya walaalayaal anigu qiil u samayn maayo cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo anoon weli ku gadbixin gaddeer bay saaran tahay godabayo gowraciyo angooliyo xaalkan tegayay
iyana waxaan kaga gamaa gobayleeco ha jabin sadaashana waan qabaa martina guulaanu ahay martina guulaanu ahay runtaan idiin sheegaya cudurka tahriibkaad doonaysaan inaad meelo kale ka soo bartaan shaqo la-aan baa jirta waddankii dawlad kama jirto sanaana haysa maxaad ku haysataa qurbaha runtaanu kuu sheegayna annagaa ku naqaana baaldi baad qaadanaysaa markaasaad gawaadhi u xaadiraysaa adigoo laandheero sheeganaya oo jaamacadda ka soo baxay qaansiirkaad gowracaysaa aydaad qaqabanaysaa xadhigga sidii taraafiga aydaad taraafig u tahay waa runta aynu isku sheegna walaalayaal waxaanu dhiikuyu waanu bilownay ururkii xaqiiqdaanu bannaanka soo dhigaynaa waddamada shisheeye waxba ma yaallaan runtaan idiin sheegayaa rag iyo dumarba waa lagu bahdilmay cunsuriyad bahdilaad xamaalis shaqo xumo kaamamka caydha darxumoo dhan baa inugu haysata runtaynu isku sheegaynaa walaal dhalinyarta waddankeenu joogno runta aynu u sheegno dhalinyarta waddankii joogta waxaanu leenahay sharaf iyo cisi baad ku nooshihiin rag iyo dumarba qiimaad leedihiin ilaahay sameeyaan ku dhaartaya ee bahdilaadda iyo darxumada ay maanta dhalinyarta qurbuhu ku sugan yihiin haddii aad og tihiin mabaydaan soo qaadeenba tahriib walaalayaa runtaynu isku sheegaynaa waxba yaan la buunbuunin liibiyaanna kuuma iman yamanina kuuma iman sacuudiyaanna kuuma iman adaa cagahaaga ku doontay adaa waddankaagii nacay nimcadaadii adaa caasiyey waalidkaagii adaa caasiyey dalkaagii adaa caasiyey dhalinyarooy adaa dhimanaya adaa lagu garaacayaa adaa lagugu xaraynayaa xero adaa lacag lagaa doonayaa badda markaad ku dhibaatana cidda dhimatay waa adiga dhalinyarooy cidda ay tacsidu u taallaa waa hooyadaa iyo aabbaha cid kale lama wadaagto walaa xukuumad baan la wadaagayn walaa cid kale aan la wadaagayn imisaa dhintay miyaan iska oohisiiyaa been baan iskaga oohisiiyaa 500 oo dhalinyara masar ku degtay maalinta isbuuc baa la hadalhayo la iska oohisiinayo baraha bulshada lagu soo faafiyey yaman dhalinyar baa lagu duqeeyay 60 gaadhaya 40 baa dhintay ilaa 60na waa dhaawac maalintii baa ugu dambeysay maantana dadkan la garaacay maalin bay baraha bulshada soconaysaa waa runta aynu isku sheegno dhalinyarayo dalkeenna ma badbaadina dhalinteenna ma badbaadina waddankii ma ku noqonnaa shaqo abuur ma samaysannaa dalkeen iyo dadkeenna ma aaminaa ma iska daynaa sawirradan iyo waxaan quruxda badan iyo khiyaaligan muwaadiniin dhaba ma noqonnaa ma ismaalgelinnaa ummadda iyo xukuumadda ma u soo bandhignaa barnaamijyo cad markaa cidda haddaad barnaamijyo cad la timaado oo aad waddaniyad la timaado oo dalkaaga iyo dadkaaga aad wax u qabato nin kastaa walaa xukuumad walaa sheekh walaa siyaasi walaa shacab waa lagu garab istaagaya laakiin walaalayaa runtaynu isku sheegaynaaye way la dheeraatay waan ka baxayaaye markaad adigoo gabadha amba adigoo wiila adigoo oon walaal cid la tashan oon hooyadaa la tashan oon aabbahaa la tashan oon madax la tashan intaad walaal gurigiinnii gooraan habeen ahayn maalin ahayn aad ka soo baxdo nin wax alla wuxuu garan yahay wax alla wuxuu yahay la garanayn aad raacdo yaad eersanaysaa ma waalid baad eersanaysaa ma xukuumad baad eersanaysaa maxaynu beenta iskugu sheegaynaa war waad dhimanaysaa nin qayrkaayabaa ku garaacaya oo madaxaaga kaa taajiray calaa qof $8,000 buu kaa qaadanaya $8,000 maanta yurub ma ka soo shaqaynaysaa maraykan ma ka soo shaqaynaysaa guriga lagu iibiyey dhulka lagu iibinayo maraykan ma ka soo shaqaynaysaa maanta yurub ma ka soo shaqaynaysaa ilaahay baan kugu dhaarsheeyey war adigii baa lagaa faa'iiday oo magafa kaa faa'iiday aan daryeelna dadkeenna danyarta iyo miskiinka aan daryeelna dadkeenna hooyadaa darxumaysan ee galluuban cadceedda aan daryeelna dadkeenna dhalinteenna dhammaan ku dhammaatay tahriib hilibkaa bisilee ku hallaabay waraabe hooyadaa ba'ayeed iyo ilmadu ay ka dhammaatay aan daryeelna dadkeenna danyarta iyo miskiinka aan daryeelna dadkeenna agoonka iyo dadka waalan aan daryeelna dadkeenna curyaanka iyo indhoolka aan daryeelna dadkeenna ciidankeenna dhammaan u adeega danteenna ee difaaca dalkeenna calankeenna iyo diinta ku gamayna dushooda
habeen iyo maalin dhibteenna u taagan walaalayaal anigu qiil uma hayo tahriib adaa isdilay adaa tahriibay cid kale maa tashan qiil uma hayo runtaan idin sheegayahay nin waynu iswada garanaynaa dhalinyaro war dhalinyaroy gacmo aynu isqabsanno dhalinyarteennaana inagu aynu baaba'nay dhalinyarteenna aynu badbaadinno ruwaayad aynu ka matelno dhibaatadii nagu dhacday runta aynu soo bandhigno hablaha la dhibaateeyey runta ha u sheegaan hablahooda kale ceeb maaha dhibaatada lagu geystay haddaad walaalkaa uga digta ceeb maaha adigu dhibtaad aragtay waa lagugu caayi buu isleeyahay runtii xaqiiqdii waa lagugu caayi buu isleeyahay markaasuu kolba meel yaroo qurux badan soo gelaya ayuu isku soo sawiraya ilaahay ballanki walaalayaal dhalinyarta DQ waxaan u sheegayaa ururkii waanu samaynay waxaanu la dagaalami doonaa propagandaha iyo dacaayadaha miidiyaha DQ Somaliland difaaca qaranku wuxuu la dagaalami doonaa faqriga iyo jaalka DQ Somaliland wuxuu la dagaalami doonaa tahriibka wuxuu la dagaalami doonaa qaadka iyo propagandaha wuxuu la dagaalami doonaa DQ Somaliland haddii ilaahay yidhaahdo maxaa qabyaaladda wuxuu la dagaalami doonaa walaalayaal shaqo xumida jaahilnimada wuxuu la dagaalami doonaa wadaniyad xumada qofku markuu muwaadin noqdo waxa uu garanayaa dalkiisu wuxuu yahay maanta aqoon inaga dhimani ma jirto nin walbana qurbuhu joogaa habeen dambe waxaan ka hadli doonaa tahriibka bas habeen dambe haddii ilaahay yidhaahdo tahriibkaan ka hadli wararka runta ana bannaankan soo dhigi xaaladda qurbaha dadku ku nool yihiinna waa idiin sheegi doonaa walaalayaalow dhalinyarteenna aynu badbaadsanno Somaliland waa dal qaniya waa dal hodana 5 milyan baynu nahay xoolaynu leenahay kalluun baynu leenahay waxaanu leenahay maxaan ku dhahay beeraynu leenahay ilaahay sameeyaan ku dhaartay nimca ilaahayna sii war ma oromadaynu uga qaxnaa dhulkeenni ma amxaaraynu uga qaxnaa dhulkeenni yaa ku hadhaya markaad adigii aad maraykanka kaamam caydha gashoed qaansiirka iyo kiniisadaha ka xaadirto yaa adiga dhulkaagii yaa kuu badbaadinayo yaa kuu hadhaya war caqli baa loo baahanya walaalayaal haddii ilaahay yidhaahdo arrintaa si xoogaynu ayaynu uga hadlaynaa maalin walba hablaheenniyoo la garaacayo dhalinyarteenniyoo la garaacayo waalidkeenniyoo la kalifayo oo dhulkoodii iyo guryihii ay ku jireen iibinaya uma dulqaadan karno waa dhibaato weeye in mukafe uu naga taajiro in inama yaroo muharibiin iyo hablaheennii intay guryahoogii kala baxaan balaag inama yaroo muharibiina oo qayrkeena ayaa hablaheennii intay guryahooda kala baxaan goor aan habeen ahayn maalin ahayn meeshay doonaan la tegaya ilaahay baan kugu dhaarsheeyey walaalayaal arrintaasi arrin loo dulqaadan kara maaha si cad baanu uga dhiidhiyeynaa barnaamijyaanu ka diyaarini culimo iyo xukuumadba barnaamij cad baanu ka yeelan wacyigelin baanu samayn na garab istaaga haddaad doonaysaan tahriibku inuu naga dhammaado oo dalkeennu uu hodo noqdo annagaa idin hor taagane mashaariic ballaadhan iyo horumar baanu haynaaye na garab istaaga xafiiskana hargeysaanu ka samaynaynaa hargeysaanu ka bilaabi waad arki doontaan hal sanno gudahood sida aanu u bedelno dhalinyarta haddii ilaahay yidhaahdo daacad lilaahi wa rasuulihi bay naga tahay insha allah bidmillaahi kariim waanu guulaysan doonaa Somalilandna waxay u baahan tahay dhalinyarteenna u baahan tahay Somaliland siiraayo uma baahna musabbixu uma baahna ina kaahin uma baahna iyagu waqtigoodii way qaateen taariikh wanaagsan baanay ka tageen midhaha iyo wanaaggaas aanay nooga tageen innagay inoo baahan tahay ammaanadeenna inaynu xafidno dhalinyarteenna inaynu badbaadino hablaheenna inaynu badbaadino dalkeenna inaynu badbaadino dadkeenna inaynu badbaadino Soomaaliya maamulka taagta daran waa ka inaxaasidaya wuxuu sheeganayaa aqoonsi in adduunka laga aqoonsan yahay haddana wax alla wuxuu soo kordhinayaa ma jirto waa ka ku faanaya in la aqoonsan yahay wax alla wuxuu soo kordhinayaa ma jirto innagiina way naxaasidaya haddaynu ictiraaf heli lahayd qof walba meeshuu joogaa loogu tagi lahaa laakiin maanta waxa madaxdeena dabraya waa ictiraaf la'aanta waayo lama aqoonsana qaramada midoobay kuma jiraan ma dacwoon karaan caqabadaas ayna haysata laakiin kuwii sheeganayay in la aqoonsan yahay walaalayaal kuwii sheeganayay in la aqoonsan yahay waa ka maanta wax alla waxay qabanayaan ma jirto
Somaliland unbaa loo aqoonsay markay Somaliland noqoto unbay dawlad noqdaan laakiin waxa la waxay soo kordhinayaan ma jirto ciyaal dhalinyartii waa ta Hindiya ku jirta ku dhimanaysa ee tiimbeedu ku wada dhacday ee jasiiradda Silcis 7 sano ku wada jiraan meel walba way ku silcayaan haddii la aqoonsan yahay dawladnimo ku faanaysay qaramada midoobay kursi ku leedahay hay'adaha caalamiga maxay ugu soo bandhigi weeyday maxay ula tacaali weeyday waa been waa xaasidnimo waa munaafiqiin baqalima dhasho wax dhalana ma doonto Somaliland bay dawladu tahay oo ictiraafkeeda iyo horumarkeeda la dagaalantaa wax alla waxay soo kordhinaysaa ma jirto car haddii ay aqoonsi ku faanayso iyo qaramo midoobay iyo kursi ku leedahay dhalinyarta ha u dacwooto xaqooda ha u soo dhiciso muqafaha ka soo ururiso talyaaniga ka soo ururiso haddii ay aqoonsi ku faanayso wax aqoonsi ma jiro lama dhageysto waa la arkay inay fashilmeen inagu bay naxasideen marka aynu isku tashanno gacmaha aynu isqabsanno Somaliland ahaan dhalinyarteena aynu wacdi galino aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalayaal fiidooga share gareeya habeen dambe tahriibkeenu ka hadli siday tahalan uga hadli tahriibka iyo waxyaabaha sababay baanu ka hadli doonaa qaadku kow ka yahay jaahilnimadu 2 ka tahay aqoon la'aantu 3 ka tahay dhalinyartu iswaalaysa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin jecelahay hayga caajisina idinka caajisi maayo DQ wuxuu idin ballan qaadayaa ururka difaaca qaranka jamhuuriyadda Somaliland miidiyaha dacaayadaha miidiyaha inuu la dagaalamayo wuxuu idin ballan qaadayaa wax kasta oo xaqiiqo inuu idin soo bandhigo wuxuu idin ballan qaadayaa DQ Somaliland in Somaliland ay noqon doonto dunida dalalka ugu qanisan ee ugu xasiloon insha Allah taala annagoo dhalinyara oo aan dhibaato geysan oo dagaal oogin oo ma taqaana aan xasilooni darro keenin ayaanu gacmaha isqabsanaynaa waad arki doontaa muddo yar oo kooban ayaanu ku bedeli doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin jecelahay tan iyo intaynu ku kulmi doonaa habeen dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu